wariyahana Axmed Maxamed Ibraahim ay noo faahfaahiyay warkan. xildhibaan Daleys Xasan Aadan oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulanka golaha shacabka ka hor sheegtay in garoonka diyaaradaha Muqdisho lagu hor istaagay safar ay ku tagi lahayd gobolka Gedo. xildhibaan Daleys ayaa shaaca ka qaaday in hay'adda nabadgelyada qaranka ay ka joojisay safar ay doonaysay inay ku tagto gobolka Gedo si ay uga qayb qaadato dejinta xiisadda halkaas ka taagan. hadalkan marka ay sheegtay xildhibaan Daleys ayaa lagu daray arinteeda ajandaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee maanta kadib markii ay talabadeen qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. xildhibaan Daleys oo nala hadashay ayaa sidan inoo sheegtay. walaalow ma garan karo aniga naftirkayga safarka waxa la iga joojiyay ma garan karo aniga deegaan doorashadeeda u socday degmada Luuq mana garanayo waxa la iga joojiyay inaan safarkaas inaan ba hay'adda nabad sugidda may wax soo ii sheegeen inaan bixi karin oo kaliya ay ii sheegeen taas leeyahay ha may way taagan tahay caqabadeedu way taagan yihiin ayagan jawaab ka sugeynaa ma raba inaan ka hor dhaco marka jawaab ka sugeynaa insha Allah waa ka hadlaa arrintaas gudoonkana waan u sheegay marka jawaabta ayaga ila jisha geesta kale gudoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa ugu yeeray maalinta beritaha inay hor yimaadaan xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Generaal Cabdi Xasan Xijaar iyo agaasimaha laanta socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi. mas'uuliyiintan ayaa la sheegay inay su'aalo weydiinayaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku aadan arrimaha ammaanka dalka iyo xayiraadii la saaray mas'uuliyiinta sarsare ee madasha xisbiyada qaran. kulan la yeelan lahaa maalintii shalay mas'uuliyiintan loo yeeray ayaa u baaqday dalab ka yimaada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya kaasi oo ah in la hor keeno fadhiga guud ee golaha shacabka si ay su'aalo u weydiiyaan xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya halka marka hore ay la kulmi lahaayeen kaliya guddiga joogtada ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. maalinta beritaha ayaa mas'uuliyiinta loo balansan yahay su'aalo weydiintooda. dhageysiga dacwad oo xisbiga himilo qaran oo ka gudbiyay hay'adda duulista rayidka Soomaaliya ayaa iminka waxa ay ka socotaa magaalada Muqdisho. war soo saareeyna Maxamed Cali Maxamed oo arrimahaasi il gaar ah ku hayay ayaa iminka stuudiyaha nagula sugan. Maxamed soo dhaw. waa maasan tahay Maryan waxa magaalada Muqdisho ka socoto maxkamad saran loo gudbiyay dacwad ku aadan xisbiga himilo qaran dacwad ay ka gudbiyeen hay'adda duulista rayidka Soomaaliya taas oo ku aadan in magaalada Muqdisho xilli ay ka anbaxayeen wafdi hogaaminaya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed lagu xanibay magaalada Muqdisho. dhageysiga dacwadda ayaa haatan socota waxaana doodaya qareenada u doodaya laba dhinac dooda u dhaxayso ee hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed iyo xisbiga himilo qaran. inta aan dooda si toos ah loo gudo gelin ayaa garyaqaanka dawladda hore waxa uu sheegay in dacwadda xisbiga himilo qaran ay soo gudbiyeen maanta ay tahay fawdo iyo sharciga lagu xadgudbaya waxaana maxkamaddu ka dalbaday in dacwaddaasi aysan awood u lahayn mid dastuurin ay tahay maxkamadda dastuurigana aysan dhisneen laakiin kulan ay qaateen xubnaha maxkamad sare ayay ku go'aamiyeen ay awood u leeyihiin ay qaataan ama ay qaadaan dacwadan waxaana socota haatan dooda u dhaxayso qareenada haddii dhageysiyaasha aanu maqashiinin bal dooda sida u dhacayso. waxaan cadaynaynaa oo aan maxkamadda hore ugu soo gudbinay oo aan ka jawaabaynaa qareenku mar waxa uu leeyahay go'aanku annagu nagu socday mar wuxuu leeyahay beegsi baa jiray nala beegsanayo waxaan u aragnaa hadal uu maxkamadda ka hor yidhi laakiin hal mar aanu keenin wax caddaynaya in la beegsanayo maxkamaddu nagu soo gudbin annagu maanaan arag marka waxaan jeclahay inuu qareenku markaa uu dulucda aan ku koobnaano kale waxaa haatan hadlaya mid ka mid ah qareenada u doodaya ama difaacaya hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed ee laga soo gudbiyay dacwadda waxaanu dhageysiyaasha hadduu alla idin u soo gudbin doonaa saacadba saacada ka dambaysa sida ay maxkamaddu go'aan uga gaarto haddii maanta ay soo gabagabaysay iyo haddii waqti kale ay qaadanayso dhageysiyaasha waan la soo wadaagi doonaa insha Allah. waayahay maxamed marka intaada bixin dacwadan hadda aan maqlaynay socoto dhageysigeeda socdo cidda soo gudbisay oo xisbiga himilo qaran iyo hay'adda duulista rayidka loo gudbiyay wakiilo ka kala socda labadaas hay'ad ma joogaan maxkamadda waxaa joogo xildhibaano ka tirsan golaha shacabka iyo sidoo kale xubno sare oo ka socda xisbiga himilo qaran oo dacwadan soo gudbiyay goobjoog ayay ka yihiin fadhiga sidoo kale dad rayida ayaa joogo sidoo kale waxaa goobta ku sugan xubno ka socda hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed oo iyaguna dacwadda goobjoog ka ah oo dhageysanaya qaabka bal qareenada iyagu ay qabsadeen ay u difaacayaan ama dooda ugu gudbinayaan laba dhinac.
wixii warar kusoo kordha sidaad maqasheen maxamed caliba waa idinla socodsiin doonaa saaxiibayaal haddii aad yirahdaa ama boggeena ayaan ku qori doonaa radioculmer.com iyo facebookgeena halkaas isha ku haya haddii wixii soo kordha halkaas ayaan ku daabici doonaa haddii aad yiraahdee haddii aan eegno dhinaca gobolada koonfureed ee soomaaliyana ciidamadii ugu badnaa oo ka tirsan kuwa kenya ayaa maanta waxay soo buuxdhaafiyeen degmada ceelwaaq oo ka tirsan gobolka Gedo xuduudana ku yaala waryaheena cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkaan inoo soo diray dowladda Kenya ayaa ciidamo fara badan waxa ay soo dhoobtay xadka ay la wadaagto Soomaaliya gaar ahaan dhinaca degmada ceelwaaq ee gobolka Gedo sida ay sheegeen dadka deegaanka ciidamada militariga Kenya oo wata gaadiidka gaashaaman ee dagaalka ayaa lagu arkay iyaga oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada xuduudda dhinaca degmada ceelwaaq isla markaana dadka ay cabsi dareemeen ilaa iyo hadda lama oga sababta ka dambaysa in Kenya ay ciidamo hor leh soo dhoobto xadka dhinaca gobolka Gedo ay kala wadaagto Soomaaliya hayeeshee warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in ay taageerayaan madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan kaas oo la sheegay in loo diiday in uu galo magaalooyinka qaar ee ka tirsan gobolka Gedo madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo maalmahan ku suganaa degmada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ayaa dhawaan sheegay in dawladda Soomaaliya ay dhibaato ka wado gobolka Gedo isla markaana ay adeegsanayso ciidamo Etoobiyaan ahi mid ka mid dadka deegaanka oo lagu magacaabo Axmed Gaaciye oo la hadlay idaacadda Kulmiye ayaa waxa uu xaqiijiyay in ay ciidamada Kenya ay ku sugan yihiin meel 4 kiiloomitir dhinaca galbeed ka xigta degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxa uu sidoo kale xaqiijiyay in ay haatan dareemayaan cabsi badan dadka deegaanka waxa weeye ciidamada tooda xadida jiray oo aad u tiro badan oo Kenyaanka ah ciidamada meelaha ka yimaadeen lama garanayo dadka deegaanka waxay sheegayaan dadka taxsheeyeen in ciidamada aad u badan ma shimaadeen haddana inay dadka magaalada la ku dhaxmarayo aad u shaqeynayso ciidamada dadka waxay yeerin laakiin xadida aad u badan asla dadka bulshada ku abuurtay oo afiya ciidamada Kenyaanka meel 4 kiiloomitir u jirta magaalada ay joogaan sida wararka lagu sheegayaan 4 kiiloomitir waxta ku jiraan meel u jirtay والله لما قرنا أذكرنا في جسد عاوي إذا من أبي تربى أنا ماشي مالي أبى إيه واحد يلام قلت لك كنت حلو أكتر بشيء إذا ما غلارك أركا حد ملال ما شقينا يعني فاكر لو أركا ما هذا بيجي عادي لو شقينا يعني بشيء عادي شقينا فا مجال هو مرض إذا ما صار كذا في عزيز بقول تصبح هذا طلع فيه رأي بدين عادي بدينا أوكي بنجي هو الشيء لكن تعملنا لأن ميري أبي أنا مغني من درا كتير مش رجع عليه كون من بلح وإذا مش تجي ترى واقعي ميري أبي ما كان والله أبي ما قال لك تورك فشيء يعني لسه يعني كذا بس إذا ما مشوا بعد كتير عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك KNN كسمايو mahadsanid cabdi majiid guddiga ku-meel gaarka ee baarlamaanka federaalka u magacaabay diyaarinta sharciga doorashooyinka ayaa soo gabagabeeyey howshoodii iyadoo u gudbiyey gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal warbixintii u dambeysay ee ay kasoo diyaariyeen sharcigii doorashooyinka guddigan oo ka koobnaa 15 xildhibaan ayaa bilihii lasoo dhaafay ku howlanaa diyaarinta sharciga doorashooyinka iyagoo tagay xarumaha maamul goboleedyada lana kulmay bulshada iyo madaxda maamul goboleedyada xubnaha guddigan ayaa kulankii u dambeeyey ee diyaarinta sharciga doorashooyinka ku yeeshay dalka Jabuuti gaar ahaan magaalada Carta iyadoo doodo kala duwan ka yeeshay hanaanka ay noqon karta doorashada dalka ka dhaceysa horaanta sanadka 2022 sharciga doorashooyinka ayaa lagu wadaa in sabtida soo aadan la horgeeyo baarlamaanka Soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka si ay dood uga yeeshaan isla markaasina loo dardargeliyo howlaha doorashada dalka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo odayaasha dhaqanka goboladaas ka soo jeeda ayaa isku khilaafsan tirada xildhibaanada maamulkaas oo yeeranayo iyo weliba qaabka loo soo xulayo waryaheena axmed cabdiqaadir yarow ayaa warkaana inooga soo diray magaalada Beerdhabo ismariwaa aad u xoogan ayaa weli ka dhex taagan odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kaas oo ku aadan tirada xildhibaanada koonfur galbeed oo weli la isku raacin sababtoo ah odayaasha dhaqanka waxa ay doonayaan in loo daayo tiradii hore ee ah 149 mudane halka madaxweyne Laftagareenna uu ku adkeysanayo in la iswaafajiyo dastuurka koonfur galbeed iyo tirada xildhibaanada taas oo ah 95 mudane sida uu dhigayo dastuurka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha
koonfur galbeed ayaa waxa uu sheegay in bil walba uu ka qaado dowladda dhexe ee federaalka soomaaliya lacag dhan 150,000 oo doolarka maraykanka ah ayna ku baxdo baarlamanka tiradaasna ay aad u badan tahay sida ogtihiin baarlamaanka koonfur galbeed sida maamul goboleedyada kale oo kala manihin waxa kala hormaray dhismaha dawladda iyo baarlamaanka koonfur galbeed waqtigiisa waa dhamaaday wuxuu ku egyahay bishan haday dhamaato iyo ku egyahay December 8 iyo ku egyahay waxaan nagala rabaa inaan baarlamaan cusub dhisno baarlamaankii hore wuxuu ahaa 149 xildhibaan dastuurka waxaa ku qoran 95 xildhibaan waxay u baahan tahay in la iswaafajiyo waxaa kaloo ciladaho jirto baarlamaanka koonfur galbeed wuxuu ka badan yahay baarlamaanka Jubbaland iyo baarlamaanka Puntland oo la isku daray waxaa badan baarlamaanka koonfur galbeed 149 labadaas baarlamaan oo la isku daray saa ogtihiin dawladda federaalka miisaaniyadeeda waxaa ku jiro 150,000 oo dawlad goboleedyada saddexda ay leeyihiin koonfur galbeed iyo Hirshabeelle iyo Galmudug oo loogu talagalay maadaama aysan dekad haysanin arrimaha security inay ku xaliyaan lacagta ayada ahayd inta anigaan imid wax security ku qabanay male waxaan u wareejiyay baarlamaanka marka 150,000 waaye 150 baarlamaanka qaadanayo dhinaca kale odayaasha dhaqanka ayaa wada dadaal ku aadan inay kaga dhaadhiciyaan madaxweyne lafta gareen in loo daayo tiradii hore ee 149 ka mudane sida uu qabo